الأسود صحابي قال لي هذا وحيدي أنا جاي الله من إنه كلا إلى الصعدة أي النبي سوى جهني بيدي iyadoo gaajal daraadeed aanan dhagaa wax ka maqlayn buu yiri yani ahdu saxaaba ee koowaad waa soo qaxeen waa soo hijroodeen xoolo iyo wixii haysteen oo dhan waa lagala haray magaalada Madiino yar bay yimaadeen ahlu safa dad badan baa masaajidka nabiga iska joogeen waxba haysanin dabeetana المضاد بن أسود وحليهي أنا جاي الله من إنه كلامه وقاعد دراد ذهب أسماعنا بقول وأبصارنا من الجهد رجعها أنا وحكم مقلنين ده أنا وحبطن كاركينين أيها النبي يسوع صبان دقني بقول هذا أنا بريدنا وكحشوني يعني يقع عين خاصية إد وحنا سيسنا ما ننهلين بقول نبي عليه الصلاة والسلام بقول بقول وربلنا كنا صدق ذي بوك حي لكن محو نبي وهايستايا وسينيا gurigiisa waxa jooga 3 neef oo riyaa 3 neef oo riyaa buu yiraahdaa hal liso waa 3daas guriga jooga buu intaaseen wada cabaynaaye inoo qaybiya wuxuu waan nimaadna waa lisnaa dabeetana 3dayadu inin baanu cabnaa in yarna nabigaanu meel u dhignaa marka uu nabigu yimaado calayhi salaatu wasalaam ayuu salaanaan ka hurdana toosinayn ka soo jeedaana maqlaya buuna salaamaa intuu masaajidka soo galo tukado ayuu salaantaana salaamaa buu yidhi deetana waxaanu soo qaadnaa intii yaraydaanu isaga u dhigno intii baanu siinaa maalintii dambe ayuunbaa shaydaanku ii sheekeeyo waxaan idhi buu yidhi waar nabi maxamed mala isagu kolley meelaha waxbuu ka soo helayaaye intaan soo kacay ayaan intiisii yaraydna ka laacay buu yidhi intii yaraydaan nabiga u dhigi jirnay waan soo kacay bilo xadiis saxiix muslimku ku yaala intii yaraydna waan cabay buu yidhi markaan haddana cabay ayuu shaydaan haddana i warwar geliyo wuxuu yidhi buu yidhi way bal waxaad samaysay intii yarayda nabi maxamed baad cabtay maanta ku habaari doonay ahlu naarkaad ku biiraysaa ayaan haddana isidhi buu yidhi anigoo warwarsan آخري أدوم بابا شيبان سيدي بيقول أنت هاي رعاني دبتنا وان سوق عيبول أنت شملة ضيدي ريت سوق عطي مرة ضيران ستة بيقول هدان حق سر سارنا عجاي مغري هدان حق وسنا حق سراي مغنس هرد دايق سودك ويدي مرة ضيران بس ليه هو بوليه كل ما ضحى كنت ضوبه كل عجاها قاليه حق سراي قومه يعني حتى وحو هو ده ما هيستو هرد بويق سودك ويدي ويدي markaan cabaar galgashay ee hurdayga iman weyday ayaan waxaan isku dayay buu yiri inaan tala kala keeno waxaan sidii buu yiri war nabiga hadduu sidan ku yimaado oo gaajoodo oo ku habaaro ilaan liibaani mayside waxaan isku dayay buu yiri inaan kaco oo muxuu samaynayaa marka kan midi baan soo qaatay buu yiri dabeetana waxaan sidii buu yiri haata nabigu yuu kugu gaajoonay صدح دمت قالوا نبي أو خال نفكر هاي ماشي تشوفي أيوه صاقع مركا أنمي أيوم بانر كي بيقول هدنا نفكيو دربابا حكسي موديو عانا كتيران تبع تنوال لسيبولي بسريه بهدنا دبيو ضرره وان لسيبولي حوركا كسو دولي تبع تنوال سوق هذا النبي كانوا كان يبولي نبي جيبه وحولي عليه الصلاة والسلام أشربتم شرابكم الليلة عانا دبادن بواركا ورعاو ميدين انتي نعبين مركاساني يقول ما عبنا إلهي الرسول كيسيو يا رسول الله اشرب أدقوا عباني يقول مركاسو عب دبيتنا ويدي بيقول مركاساني يقول يا رسول الله اشرب عب اشرب مركاسو عب مركاسو يدي مركاساني يقول عب إلهي الرسول كيسيو مركيو نبي عبي وأنقرتي بيقولي إنه سفي عنو عبي ومركي هوري ويلكو مرنان نبي دعاية وحولي اللهم أسقي من سقانا وأطعم من أطعمنا أبو دعاية وحولي مركي وحبه لنا ونبي ويلكي وحبك هواي يرى مركاسان قص اللي بيقولوا دبتنا قص البان لا دعي
markaas wuxuu nabigu ugu yidhi ixda sawaatika ya maqdaad xumahaaga mid ka mid ah weeyaan maxaad samaysay buu igu yidhi waanu sheegay qisadii baanu sheegay buu yidhi wartani waa naxariis xagga ilaahay ka timiye maad qolada kalena kicisid buu yidhi haynala cabaane ilaahay rasuulkiisa haddaynu labadeenu cabnay cidna dankama lihi buu yidhi salawaad haddaynu tilmaamno oo saxaabadan reer maka ahaa ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbayay say u muuqdeena markii bayt almaqdis muslimiintu ay furteen bayt almaqdis ninka furanayay ciidankaasna nin kaloo casharatu almubashiriin ah hogaaminayay cubaydata bnu ljaraax ayaa ciidamada watay dabeetana qoladii masiixiyiinta meesha joogtay waxay yidhaahdeen shardi ah furaha sulxi baanu gelaynaa saasaananu idinkula heshiinaynaa laakiin furaha wuxuun baanu u dhiibaynaa amiirulmu'miniinkiinu ha yimaado isagaanu furaha ku wareejinaynaa sidii buu ku soo baxay abu cubayda cumar buu la hadla wuxuu yidhi nimankii saasay yidhaahdeen dee haddaad noo iman karaysa kaale cumar wuu soo baxay wuxuu rabaa firihii bayt almaqdes inuu la wareego meeshana isaga furaha loo dhiibo mucaahadadii la galayna sidaasi ay ku hirgasho wuu soo socday markuu meesha in yar u soo jiray ayuu wuxuu soo maray dhul dhiidh iyo roob helay oo dhooba midhana dabeetana daabadii uu fuushanaa intuu cumar ka daadegay oo labadii kaboodna la baxay ayuu labadii kaboodna halkan ku soo qaatay neefkiisiina soo hogaamiyey dhoobadiina iska soo dhex socday abaa cubayda iyo ciidamadii muslimiinta raggii soo dhaweynaya ka hor yimo abaa cubayda wuxuu yidhi cumarow ma jeclin maa yusiranii ana ahlu lbaladi istashrafuuk xadiidka xaakim warinayo magaalada dadkeedii iyo madaxdeedii inay ku arkaan sidan adigoo ninkan faydan ee cagaa dhoobada kule ah in lagu arko maan jecli buu leeyahy cumar eraygii wuu dhibsaday adiga cidan awah low yaqul hada hayruk buu yidhi abaa cubayda waxaan jeclaan lahaa midaan adiga ahayn inuu yidhahdo abaa cubayda adigoo kaa xishoonaya buu leeyay laakiin waan ciqaabi lahaa nin kaloo aan adiga ahayn inuu yahay marka waa ka xumay buu leeyahy low hayruka qaalaha mid aan adiga ahayn mu warkaasi ka soo baxa buu leeyahy dabeetana cumar wuxuu dib ugu noqday taariikhdoodii abaa cubaydaba waa ogiyey laakiin wuxuu yaro rabuun isagoo amiirulmu'miniinku u muuqda amiirulmu'miniin xagga dharka iyo haybadda inuu meesha yimaado laakiin cumar wuxuu ku leeyahay waxaanu ahayn inaa kunaa adalla qowmin dad aada u dullaysan baanu ahayn ilaahay diintan buu nagu ciseeyo dad nagaga dhigay buu leeyay markaanu carab ahayna dhulkaygii joognay dad dullaysan baanu ahaan jirnay laakiin ilaahay wuxuu nagu ciseeyo nagu sharfay diinta tan haddaanu ka raadina buu leeyahay sharafta meel aan diintayada ahayn ilaahay waa na dullaynaya ilaahay diin buu nagu sharfaye waxaan diin ahayn haddaanu sharaf ka raadina waa dulloobaynaa maxaynu uga dan leenahay waxaynu uga dan leehay qofku muctas bidiinihi inuu rumaysnaado in wax ka maqan yihiin inaanu ogeyn bidhbidhkan adduunya inaanu qiimo badan ku lahayn taasi waxay keensanaysaa inuu diintiisa xoog u xeejisto bal aan laba mucqad laba qof oo kursi ku dul fadhiyaan tilmaamo falastiin waa maqashaan iyo urur xamaas la yidhaahdo yuhuudda jihaad kula jiro iska dhiciyo dunida wixii bam yaallay lagu garaacayo weli istifaacaya ururkaa ninka sameeyey ee hogaaminayay hagayay korsuu dul saaraa meel dhaqaaqdo jidhkiisii ma jirin markuu wax akhrinayo waraaqda kitaabka qur-aan ee uu akhrinaya inaanu dhalay u rogi jiray maalin bay waxay yidhaahdaan inanku dhalay baa seexday ka gamay si uu rogaa buu garan waayey kitaabkii uu akhrinaya waraaqdiisa carabku isku dayay inuu ku rogo meel dhaqaaqda carab buu leeyahay maca daalik xoogga yuhuudeed buu hortaagan yahay dhakhtarkiisa yidhi aad baad u tamar darraysa waxaad u baahantahay na siino dabeetana wuxuu yidhi may ee masaajidka ha laygeeyo ramadaan bay hede waa caawa soo jeedayaaba waa cibaadaysanayaa soo jeeday isagoo kursiga lagu sidaa laga soo saaray masaajidka israa'il kaa kursiga lagu siday intay u adkaysan weyday markii masaajidka laga soo saaray ayaa faantannimada cirka mara inta loo soo dira gantaal lagu dhuftay
يعني ninkaasi hamu siday jidna intaasu ka yahay itaalkiisu waa carabka dhaqdhaqaaqaya aqligana wuu qabaa laakiin isma oran muqcad baatay qof fadhiya baa taan waxba qaban karin isma lehe wuxuu u taagan yahay inuu diintiisa iyo ummadiisa iyo dadkiisaba xoreeyo ummad dhan buu u ahaa maxay hoggaan ruuxiya oo hogaaminaya حركات دن oo jihaad iyo isdifaac iyo wax iska rabaya dawlado dhan oo dunida waaweyn ba u adkaysan kari la ninkaasi aan waxba qaban karin ee kursiga lagu jiidayo ayay u adkaysan kari waayay hamiga sare aan xagga gaalkana idinka tusiyo saynisyahanka maanta cilmiga fiisigiska dunida u caansan ee mulxidka ee kutubtan maanta caanka leh isna waa muqcid waa sida ninkaasi oo kale waa kursiga ugu sareeya Cambridge University kursigu Newton fadhii jiray waa ninkii fadhiyay dhawaan baa la siiyay taqaacud inuu ka fadhiisto waa Stephen Hawking waa nin Ingiriis ah oo isagoo 12 jir uu ku dhacay shalal oo jidhkoo dhami shalal qabo oo aan meelina dhaqaaqaynin codka mishiin baa ka soo saara waana theoretical physics ka dunida ugu qiimaha badan le maanta ee la tilmaamo waa ninkan le maxay قضايات كان لقول المامو إن ملهن مدوي عركة لا شيء the black holes أركتيه دي سيء وحكو صابسن وأقوياهن كدنيا ده هو جامينية هذا الكمشين بقى صارة مل دقائق سامتشرو مو يصورنين ورمقعد بات يعني مالنا ونولينه هنكيس يوحو قارسي أقوياهن كدنيا ده هو جامينية علم فيزيكس كأنه هالكاسر نقضه إن لبن نينو الصحابة كم ده هي سوهي جرودي دبيتنا طلحة بن عبيد الله وصحابي اللورين شريبي لدقه لبضن وجهاد قالين مركا جهاد قالين أيام مدي شهيدنا ما قاطي متكي كاله والله من إنه صو إسلام وإسلام نمدود في عناتي والنبي قال دقال قالي مد بعد قال دي شهيد كن نقضي كي كلنا سنة قلوصي النولاد بيشي كو حكتين رمضان نواتشو قوة دبتنا سعادي وقيريود طلحة بن عبيد الله صحابي لورنشري أيها وحو يري الريان أركي الرياد السديدة قد تكون حقا وقد تكون خزعبلات يعني النبي عليه الصلاة والسلام حقوت المامية النبدي وحكاها رأي وحكام إذا محي الرؤية الصالحة مركا رياض دبنا والنقطة باطل يوسكا دبنا والنقطة سحابنا نقول رياضي وحكو الرياضي إيضا جندي إيجاليان دبت أنا صدح دا يضع محيم بوليا أنا إيا لبدي نينا كالي لبدي نينا كالي كيد دنباد دنتي يعني جهاتك كود دمانين إيا ليدي سوغل كيبا هله الرئيسية هرقالي دبتنا كي شهيد كهابا كدبا قالي أنا إسيري قالوا هذه ولي ما يقاري وقتها قيبا ليدي بويدي marka uu soo baraarugay riyadii baa faaftay nabiga loo sheegay nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu ku yiri maxaa ula yaabaysaan waxa ilaahay rasuulkiisiiyow labada ninkii aanu islahayn dawaa dadaal badan ee shahiidoobay kii kala jannada ka horgalay tabeetana nabiga wuxuu ku yiri alaysa qad makatha hada ba'dahu bisana oo kan miyaanu sanadkan nolol dambeyn buu nabigu ku yiri markaasaa la yidhi haa waa ka nolol dambeeyey oo miyaanu ramadaantii dambe isagu soo gaadhin buu nebigu ku yidhi haye waa soo gaadhay baa la yidhi oo sooma soomin oo ma salaadin oo masaajidkan kuma tukanaynin sanad buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaa la yidhi haa famaa baynahumaa abcadu mima bayna asamaa'i waalardi buu nebigu ku yidhi xadiidka kan ibnu maaja soo warinaya culimadana saxiixa ku tilmaamayaan wuxuu nebigu leeyahay labadooda ajarkooda inta u dhaxaysa cirkiya dhulka inta u dhaxaysa in leeg baa u dhaxaysa yani ninkii shahiidnimada qaatay sanadkii hore kani muxuu kaga badiyey acmaashii uu samaystay sanadkii uu noolaa ay ka mid ahayd uu nebigu leeyahy war ninku miyaanu ramadaan soo gaadhin aanu kaasi sii maqnaa soo kani ma joogin buu nebigu nabi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi qabaa'il baa u yimi waxay yidhaahdeen diintaanu rabnaa inaanu si fiican u baranno waa kaase waxoogaa nugu dar raggaaga ah
toban saxaabiyo rag waaweyn ay ku jiraan buu ku daray tobankii saxaabi inta meel cidlaa lala tegay ayaa dhegta dhiigga loo daray ala bareey qabiilooyin unbaa isugu yeedhay oo waxaa la yidhi intan baynu ka haynaa raggii laynaga dilay hebel iyo hebel aan uga aarun baa la yidhi tobankii ay nebiga ka soo kaxeeyeen tobankiiba way dileen 7 macrakaday markii hore ku dileen isdhiiba bay 3 idhaaheen way idin daynaynaayoo markay isdhiibeen bay xadhigga u adkeeyeen mid baa diiday oo kii labadii soo hadhay na quraysh bay ka iibiyeen oo yidhaahdeen waa tii berigii beder wax laydinkaga laayee yaa aabihii u aarayo aanu nin saxaabiya ka iibinaa bay yidhaaheen laba quraysh ka mid ah ayay ka iibiyeen oo yidhahdeen annagana waxoogaa na siiya kuwana aabayaashiin ugu aara dhacdadaasi markay dhacday labadii quraysh laga iibiyey mid ka midoo xidhan ayaa markii la dilayay wuxuu yidhi muus ha lay siiyo muusku waa baalkan lagu xirxirto shaving material ah waxa lagu shave garaysto waa la siiyey muuskii yaraa isagoo hayaa kuwii dilayay ilmo yaroo ay dhaleen baa u yimi oo dhabta ka soo fuulay gabadhii ilmaha yar dhashay baa gergariirtay markaasi oo naxday dee ninkii ay dilayeen ee dilka ugu xidhnaayo oo midi yarna haysta ayaa ilmaheediina uu dhabta ka fuulay dabeetana wuxuu arkaysa wuxuu ku yidhi waxba ha cabsoonin maa kuntu liafcala hada ma inaan dilaabaad ka baqatay buu yidhi ha ka cabsoonin inaan kan dilo waxay yidhahdeen culimmadu qisadan waxaa laga faa'iidayaa alwafaa bilcuhuud xataa ka ku khiyaameeyey inaan la khiyaamaynin kuwii khiyaameeye soo xidhe iibiyey inaan ilmo carruuro ay dhaleen loo dilin ilmo carruura oo ay dhaleen iyaba waa kuway dilaya hadhow maxaa yaryarkoodu u noolaanayaan inaad odhanin islaamku kaama yaqaano walidaalika baa saxaabiga kani isagoo dilu xidhan oo la rabo in la dilo oo ilmahooda yar ay ku soo cararay oo dhabtiisu ku dhacay isagoo muddo haysta marka islaantii gariirtay wuxuu ku yidhi maa kuntu liafcala hada ha u malaynin inaan waxaa samayn kara anugu ma samaynayo qisada labaadaan tilmaamaya waxay tahay iyadoo nebiga taasi ku dhacday ayaa haddana qolo kale u timo waxay idhaahdeen kuwii daliya qaara niman la yidhaahda bay ahaayeen iyo bani lixyaan nimankii la odhan jiray reer hudayla qolo kale u yimi nebiga oo racl iyo dakwaan la yidhaahdo waxay idhaahdeen annagana bal cidhana lagu daro diintu kama foga agagaarkayagoo waa la aqbalayaaye 70 buu nebigu iyagana ku daray masaladani maxay tilmaamaysaa waa la laynayaa dadka inaan dacwo loo joojin inaan diin in la faafiyo waana la laynayaa inaan looga baqin waayo 10 hore uu diray nebigu in la diluu ogaa haddana markii la yidhi dacwaan wali u baahanay 70 buu dirayaa taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa in diinta la faafiyo in loo aqbalo khatar kasta inuu qofku aqbalo inuu ilaahay dartii u dhinto maadaama uu faafinayo maxay ilaahay kalimaadkiisa subxaanahu wa tacaala maadaama uu dad diin ugu yeedhayo walidaalika buu nebigu ma odhan war horaa 10 layga dilay ciddanba bixin maayo wuxuu faafiyaan balliquu canii walow aaya buu taagnaa war aayadda ha noqotee dadka ha layga gaadhsiiyo markaasuu nebigu yidhi 70 kale siiyey kuwa kana qoladanina 70kii bay kaxaysteen meel dhexe markay marayeen bay qabaa'il u heshiiyeen dabeetana nimankan aan laynay baa la yidhi ninkii waraaqda siday nebigu uu soo dhiibay qolada madaxda loogu dhiibay isagoo meesha fadhiya mid intuu xagga dambe iska soo taagay waran galiyay waa la dilay 70kana waa la dilay maxaan mas'alada tan u soo qaadanaya labadan mas'alo ee rajiic iyo mauna waxaan soo qaadanayaa hal shay inaan ogaano oo caqiidada islaamiga ku saabsan waa mas'alada ah qaybka in ilaahay uu ogyahay subxaanahu wa tacaala nebiguna intii loo waxyoodo quray inuu ogaa hadduu nebi maxamed qaybka ogiyey 2 goor lama dileen raggiisa hadduu qaybka ogyahay maxay lama dileen walidaalika baa ilaahay qur-aan soo dejiyey uu leeyahay قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا
nabi maxamed oo dadka waxaad ku tidhaahdaa war anigu lafahayga uma hanto waxtar iyo waxyeello toona ilaa maa shaa allahu mooyaane ilaahay wuxuu doono mooyaane walow kuntu aclamu alghayba lastakhartu min alkhayr waxaad tidhaahdaa baa ilaahay leeyahay haddaan qaybka ogahay khayrku maan badsan lahaa shar oo dhan ba waan u goyn lahaa de duu nebigu qaybka ogaya ma shar baa haleeli lahaa waa inuu u jaraa un dee shar meeshuu ka soo socdaba waa inuu dhinaca kale ka maraa ولذلك بقى إلهي وحيد واحد هذا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء غيب هدان أوغاهي خير كنوان بتصل لها بنا إما هلاشين دبا إلهي سبحانه وتعالى إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون واحد كنت هذا ورنا شقا ضيد وإن اندقه أو بشاريه دد إلهي الرومينية مسائل كان صلوات الله وسلامه عليه بلبو نبغو هبارتمي صحابة لقى لا يدرادي هل بلا أي صلاة كستقنودي سقى هبار يلا ودي قبيل مو هبارتماني وسكع علين لها مركه هرو رقي سكع عشان لها دوغي هاي محي غيبك رستم مركي أي دقالما ين مسلمين تي صحابة دي رستم جنن كي هقامين عيدما دي بيرشيا إيران عيدما دي ayaa waxa la isku galay qaadisiya meel ku taala haatan wadankan Ciraaq loo yaqaano waa intaan madaayina Ciraaq bay ka tirsantaa rajeynaya la furanin waxay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed bal muslimiintu inay cid soo diraan hal wada hadlee Sa'd ibn Waqas saxaabigii la oran jiray wuxuu u diray saxaabi la yiraahdo Ribci ibn Aamir ربعي waxa loo diray inuu wada hadal la soo sameeyo janankii ama boqorkii watay ciidamada gaaleed dabeetana wuxuu yimi isagoo faraskiisa yara wata oo hubkiisa xidhan ayuu meeshii yimi boqorku wuxuu ku tala galay ninka kan inuu nafsad ahaan jabiyo dabeetana waxa la dhigay red carpetka wada taqaan Soomaha madaxdu markay dawladda ka soo degayso kacas la dhigo soo ma taqaanin ay soo dul socdaan red carpetiskaas meel walba la dhigay dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay wada dahab iyo waxaasi ka samaysan si uu halka ugu qaabilo ninkan muslimiinta u imanaya ninka muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay faras yar iska wata oo 4-5 bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad baad ka muuqda nin dagaalansan وصار صعدي وحيد هذا بقر كله ما تجاه أديكوا هوب كسيته هوب كديك وحكوا يدان أنو يدين ما يمنا يدين كأي يدي هوب كي جمر دقي أنو وحيد كسيته هذا ربطان أنو تجاه وتجاه أديك أنا واسكان نقرأيه بقر كي بالله تجاه وحلا بقر ونكي وحد يدين هوب كديكوا يعني واركتنا ده مدح ده أن هوب لا ما قاله وايو ضدك كلمة هدد إلهي أمسنا وإسخيامين يعني لكن نيكا مسلم كاي قول كيسو كو دقما ساسي درادد انتو قول سمايا غدري كما دميسيا وحما خيامايا هدنا وحو هوبكايغا دغي مايا انيغو هوبكايغا سيتا هدي لو باهي وانو تغيا بقرك waxa la yiri boqorow ninkii hubkii diidin uu dhigo soo daaya la yiri ma hubkiis faraskiisa yaraabu soo duleeriyay baa la yiri qadiifadihii red carpetka aha boqorka agtiisa markuu marayay baa la yiri intuu faraskii ka daadagay ayuu barkimooyinkii waaweynaa meesha la dhigo mid ku xidhay bay dhadaan culimada taariikh mid ka mid ah barkimo hogaankii yaraa ee faraska ugu xidhay dabeetana wuxuu yimi boqorkii markaas su'aal buu weydiiyay maxaa idin soo saaraya wuxuu ka fakarayaa dadkan magaaja wadankoodii ka keentay ma waxan baa keenay haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wada dee waxbaa la idin siinayaa iska noqda baa la rabaa in la yidhaahdo maxaa idin soo saaray baa la yidhi wuxuu ugu jawaabay markaasi ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaannu dadka ka saarro dulmiga diimaha aanu u saarno cadaaladda islaamka inaannu ka saarno cidhiidhiga adduun waannu u saarno ballaadhkeeda isagaa cidhiidhi dad ka saaraya min dayqi dunya ilaa sicatiha cidhiidhi adduun buu ka saarayaa ballaadh buu geynayaa ninka kani muxuu rumaysan yihi meeshaan uga socda baytulqasiidku waxa weeyaan ninkani wuxuu rumaysnaa inuu isagu yahay ustaadkii dunida loo soo diray professorkii loogu talagalay inuu caalamka wax baro muxuu barayaa wuxuu barayaa waxyu samaa warkii alluu sidaa ninka ilaahay warkiisa sidaana cid kasta isagaa ka aqoon badan salaad buu nabigu galay
masaajidkii nebigu sida kuweenna kan qatiifadahan iyo waxaan ima oolin masaajidkii nebigu cariish buu iska ahaa caleentan timirta ka samaysan guduhuna ciid yahay dabeetana dadku markay doonaan iyagoo kabahooda sitay la soo geli jireen masaajidka iyagoo kabahooda sitana way iska tukan jireen nebiguna wuxuu u sheegay kabihiinnu haddii aad dabadda ku soo marteen dhulka ku xoqo unoo ciiddaasaa idiin daahirinaysa nebigaa salaad galay saxaabadiina way ka daba gashay ka daba xidhatay kabahoodiina waa xidhan yihiin nebi maxamedna kabihiisii buu xidhan yahay calayhi salaatu wasalaam saxaabaduna kabaheedii bay xidhantay salaaddii bartanka markay marayso ayuu nebigu labadii kabood bixiyey saxaabadiina iyagoo salaadda ku jira ay iyaguna labadii kabood iska bixiyeen wala salaaddii lagama bixin nebigu isagoo salaaddii ku jiru kabaa bixiyey saxaabadiina iyagoo salaadda ku jiray kabihii bixiyeen markuu nebigu salaadda dhammaystay ayuu wuxuu yidhi waxaan arkay idinkoo kabaha iska bixiyee maa xamalakum calaa ilqaa'ikum maxaa idinku xambaaray inaad tuurtaan nicaal kabihiinna inaad tuurtaan maxaa kaba isaga bixiseen ayuu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen waxaanu aragnay adigoo kabaha iska bixiyey dee annana waa iska bixinay markaa u fiirso saxaabadda dhaqankoodu wuxuu joogay inaanay nebiga su-aal calayhi salaatu wasalaam su-aal weydiin maxaad kabaa u bixisay inaan la odhan inaan la odhan waba horta kabaheena aynu iska gashanaanno hadhow baynu weydiin doonaa bal hadda wuxuu kabaa isaga qoladaa jabiyey oo banu quraydo xaggeeda la qabtay oo ah reer banu quraydi nimankii yahuudeeda ka baxay ballankii ay nebiga kula jireen ayuu nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadii la socotay qofkiina yuu tukanin salaada casar banu quraydo meel aan ahayn laa yusalliyanna axadukum alcasra ila fi bani qurayda qofna salaada casar yuu tukanin banu quraydo uu gaadho mooyaane masaladan waxaynu ka garan doonaa haddii nas qur'aan ama xadiida fahamkiisu uu dadku kala fahamu ku yeesho inaanay bannaanayn in lagu kala guuro ama la isku dilo dadka muslimiinta dhexdoodii sidaa awgeed qoladan wuxuu nebigu faray qofna inaanu salaada tukanin ilaa iyo banu quraydo la gaadho mooyaane markii dhexda la marayay ayaa casar soo galay dabeetana qola waxay tidhi warhaadhay dee salaaddii way naga tegaysaa dagaalkiina waynu ku jirnaaye aan casarka u tukanno dabeetana intaynu istaagno casar tukanno aan ku dareero qolana waxay dhahaa may halkii uu nebigu yidhi istaaga inagoo istaagna mooyaane salaad dambe tukan maynayna wada qole waxay leeyihin warheedhe laa yusalliyanna axadukum alcasra ilaa fi bani qurayda nebigu wuxuu uga jeeday salaada wakhtigeedii baa la bedelay umuu jeedine wuxuu u jeeday degdega oo yacni dhaqso u tagaba waa looga jeedee salaadu waa wakhtigoodii ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta nusuus salaada raraysa ma soo degine salaada casartee casarkeedii aynu tukanno ee nebigu wuxuu inaga rabayna inaan meelo kale u jeesjeesanin oo aynu meesha gaadhno qolo kalena waxay dhahdeen war suga marka hore yaa ku yidhi adiga wakhtiga casarku markuu liiqa gaadhay halkaase tuko yaa kugu yidhi nebiga soo nebigu ma xadaynin marka horeba in wakhtiga la tukado haa maantana isagaa yidhi yaan lama tukanayn bani quraydo la taga mooyaane amarka dambaanu raacaynaa bay dhahay ila ta horeba nebiga xadeeyo tukanin ilaa iyo wakhtigaa tukada iminkana isagaa yidhi yaan maanta halkaa mooyaane meel kale casar lagu tukanin qoloba fahamkeedii bay iska qaadatay qolo waxay dhahay war anagu waa tukanayna salaadoodii casar bay iska tukadeen dabeetana waa dhaqaajiyeen qoladii kale waa socdeen siday u socdeen baa cadceeddii dhacday waa wadeen maqribka dabadiisii bay gaadheen bani qurayda markaasay casar tukadeen nabigaa loo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wixii ay sameeyeen waxaa la yidhi dee markaanu dhexda maraynay baanu isqabannay qolana waxay dhahen war salaadda wakhtigeedii waa joogaan tukanna qolana waxay tidhi halkaa
labadii qolona nebigu ma canaananin salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waayo labadaba dantooda waxay ahayd inay muraadka nebiga fuliyaan warkii nebiga inay fuliyaan bay labaduba rabeen laakiin sidii ay u fahmeen ama u fasireen uma kala gadisnaatay walidaalik waxaynu qisadana ka fahmaynaa masaa'ilka ijtihaadiga ah ijtihaadku haddii laba ra'yo kala gadisan labada caalima muslima ka ijtihaada yidhaahdaan macnaheedu ma aha in dadka shan kooxood laga dhigo nina yidhahdaan kayaga ku fayla nina yidhahda kayaga ku fayla ee waa inay dad walaalo muslimiin oo weli hadafkii iyo wixii ba isku markii muslimiintii maka joogtay gaaladu ay dhibtay aad dhibaatadu ugu badatay ayuu maalintii dambe أبي بكر يصير هجرة نلقى حبشة دي مالها اسكقبو مكو كبحة ميل برك الغماد اللي يدهده مركو مريو أي واحد لكل مي ابن دغنة نين اللي يدهده نين كان هو أضي قبيلة قارة اللي يدهده مشركين قبيلة قالت أيوه هي سلطانة ما وقاسة ما عاقل وحين شيخنا نكي بقى وحكوا يدي أبي بكر بوقرتي ورا أبي بكر وأين تريد يا أبي بكر حاجات وسعتها أبي بكر وحيري أخرجني قومي تلك يبقى يصوص عري مكة كمان بحينه تلك يبقى يصوص عري دبتنا وحان ربا نلك إلهينا اسك الصعد ربي عابده صايحنا النقضة صايحة وحلا يدا برجع ورا وحشري شري دد عبادة يسقب حص صفرة وميلا يوصعدان وقاري ياري شرين سكنا غاغون waxaan rabaa buu leeyahay inaan saaix dhulka ilaahay ku noqdo oo ilaahay carrigiisa ku caabudo oo iska tagay le tolkay isaar buu leeyahay ibnu daghina wuxuu ku yidhi abi bakar oo adigoo kale nin la saara ma tihid macquul maaha yani abi bakar oo kale in la soo saaro waayo in lagu saarana ma aha inaad adna iska baxda taasina sax maaha buu leeyahay sababtu waa maxay fa innaka tuksibu almacduum وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وحكوا يري أدوغو وهذا هانشرتي دادك آن وحيسن قف وحسية وهذا هانشرتي داد نين قرابة حريرية وهذا هانشرتي قفك علوس نين عليسك كرغة وهذا هانشرتي نين مرتضى الصورة وهذا هانشرتي مشاكل ودن nin dadka uga gargaara Abu Bakar markaa maxaa lagu sifeynaya qof naaficad bulshada ku dhaxayd baa la leeyahay qof wax tara oo bulshadu waxay u baahan ninkan waa nin gaaleed kama warramaya aakhira iyo dadka aad hanuunin jirtay kama warramayo isagu wuxuu wax ka warramaya waxtarkii adduunyo saadaradeed wuxuu leeyahay war nin tolka xidhiidhiya oo masaakiinta wax siiya oo dadka dhibtu ku timaado dhibta ka qaada oo martida soora oo nawaa'ib alxaq oo dhan dadka ugu gargaara badahay saadaradeed nin la bixiye ma tihid buu leeyahay ibnu daghina weedha uu ku leeyahay abi bakar waa weedhii khadiija ay u daliishanaysay nebi maxamed nebinimadiisa khadiija radia allahu canha markii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyigu ku soo degay koowaad wuu cabsaday isagoo cabsanaya buu guriga yimi oo le idada oo ay ka khadiija markaa waxay tidhi wallaahi laa yukhzika allahu abada ilaahay baa ku dhaartee inaan rabbi weligaa ku hoojinaynin nebi maxamed haddaad tahay balaayo arki maysid bay leedahay waana waxyigii ugu horreeyey waayo maxay sidaa u leedahay dhaqankiisii bay ka warramaysaa intaan abi bakar lagu sifeeyo kale ku sifaynaysa waxay leedahay waxaad ahayd nin qaraabada xidhiidhiya oo dadkaan waxaysa wax siiya oo dadka dhibtu ku timaado dhibta ka qaada oo martida soora oo wanaaggaasi sameeya qof wanaagsanna wahal jazaau lixsaana ila lixsaan de qof wanaagsanna alle subxaana wa tacaala dhib ma tusiya bay leedahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyey waxaa ka mid ahaa wiil yaroo yuhuudiya ayaa nebiga shaqaalihiisii ka mid ahaa dabeetana maalintii dambe waxaa loo sheegay wiilkii inuu xanuunsanayo oo gurigii aabbihii uu jiifo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay dabeetana gurigii wiilkuu yimi wiilka madaxiisuu fadhiistay wiilku aad buu u xanuunsanayaa marka nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay inuu sii socdo
aslim buu ku yidhi waryaa wiilow war islaam wuxuu ka cabsanayaa nebigu wiilkaasi intuu gaalnimo ku dhintay inuu cadaab gala dee dabeetana wuxuu ku leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam war islaam wiilkii markaa aabbihii buu eegay aabbihii baa wuxuu ku yidhi aطic abalqaasim maqal wuxuu nebi maxamed kuu sheegayo yuhuudda iyo dadkii wakhtigaa noolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebiya cid waliba waa garanaysa laakiin dana iyo masaalix kale iyo wax kaloo ilaashanayaan bay u diidanaayeen waxaad ka garan kartaa kuwii ugu waaweynaaye ka soo horjeeday muxuu aha abujahl culamada taarikh waxay soo naqlayaan inuu lahaa reer banu hashim iyo annagu waanu beretami jirnay laba qabiilo loolamaanu ahayn waxbay bixiyeena waxbaanu bixinay kanbay sameeyeen wax waloo ay sameeyeenba waa la samaynay buu leeyahy nagamay badinin haddaan reer banu makhzuum nahay nagamay badinin reer bani cabdimunaafkani ama reer bani hashimkani nagamay badin ilaa ay markii dambe sheegteen buu yidhi nebi baa naga mid ah haddaanu anagu nebi weyne buu yidhi wallaahi baa nankooda u rumaynaynin abijahl wuxuu naarta la galay qabiil buu difaacayey suu reer u difaacayuu naar galay reer hebel hadday nebi heleen buu leeyahay annaguna aanu nebi weynay kooda raaci mayno haddii aanan nebi helaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa inuu nebi yahay dee mucjizaadkiisii baa muuqday dhaqankiisii baa muuqday akhlaaqdiisii baa muuqdatay waxyiga ku soo degayaa muuqday cid waliba waa garanayso aragtaa inuu nebi yahay laakiin masaalix kale dadku markay masaalixda ilaashanayaan hiraqal boqorkii la odhan jiray markii looga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam tu waraaq u diray nebigu uu akhriye looga warramay ee uu waraystay nimankii safarkee u yimi oo 14 su'aalood ama 13 su'aalood weydiiyey ee backgroundkii nebiga oo dhan loo sheegay ayuu wuxuu yidhi sidaa aad sheegaysaan hadduu yahay halkaa aan fadhiyaa buu qabsan doonaa haddaan awoodana waan dhaqaaqi lahaa buu leeyo meeluu joogo haddaan tegi karayo cagihiisaan maydhi lahaa buu tilmaamaya dabeetana wuxuu isugu yeedhay xaashiyadii boqortooyadoo dhan iyo wadaadadii kiniisadda iyo wixii oo dhan buu isugu yeedhay wuxuu ku yidhi warrinkaasi wuxuu sheegayaa waa xaqa aan raacno albaabadana wuu soo xidha meeshii uu kula shiraya albaabadu wada xidhay tana wuxuu ninkaasi waa xaq wuxuu sheegayaa aan raacno mar quraa la qayliyo waa la cararay bes soo noqda buu yidhi idinkaan idin eegayun mowqifkiinu meeshuu taagan yahay dee kursigu waayayaa ilaane siyaasiyiintu diin la-aanta in badan kursigaa badda oo haddaad kursigaa ka riixi mayso wuxuu is yidhi kursigaaga hawaaye marka hiraqal wuxuu naarta ugu xagga gaalnimada ugu sii socday wuxuu ilaalinaya kursiga idan nebi maxamed inuu xaqiya uu garanayay odagan yahuudiga markaa inankiisii wuxuu ku yidhi yaraa aطic abalqaasim waxa uu kuu sheegaya aqbal dabeetana wiilkii yaraa baa shahaatay islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku farxay markaa islaamnimada wiilkan yara wuxuu leeyahy alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar waxaa mahadle waan mahadinaya waxaan ammaanaya ilaahay kaa yar naarta ka badbaadiyey wiilkaa u shaqaalaa buu nebigu wuxuu kala cabsi qabay inuu naarta galo idinku kuwa idin shaqaalaa maxaa ku samaysaan wax diinta u sheegay miyaa leedin mise waxaad tidhaahdaan markay sii baxaysana sii baadh inta kalena ha shaqaysa yani materialkunbaa ka fekertaan waxay dadkan inaa badbaadisaan hadduu kaa soo hor baxo qof bini aadan oo gubanayo dab sudan yahay maxaad samayn lahayd waxaad isku dayi lahayd inaad damiso socankaa ma aha qof bini aadan oo gubanaya hadduu kaa soo hor baxo asaad baktiin karto waxaad isku dayi lahayd inaad damiso qof bini aadam oo indhale hadduu kaa soo hor baxo god daba ku socda maxaad yeeli lahayd meeshanoo dab ka shidan yahay labada indhoodna ula iyo uu kusii socda maxaad samayn lahayd waad ka qaban lahayd حتى هذا كقبان كريم وقايل الله وركشوك كشوك إلهي سبحانه وتعالى وحينا فري وينات المامي التسبيح ذا يوين ذا بل إلهي أنبياء دي سوينا ورمي قرآنك والنبي كم دي إلهي وتلمامي وظيفة النبوة وين كم تيبة التسبيح إيه وحود البدين النبي اللي بعد لقوا كالميان إن كم تهين التسبيح صدا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري محوض البضي وحاصودا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا بولي إلهي وحن كادل بي بولي هارون نين النبي قدكته
walaalkay haaruun inaad nebi iiga dhigto oo igu xoojisid oo arrinka ila wadaajisid waayo kay nusabbixaka kaiira wanadkuraka kaiira markay kaalmada dalbadeenee fircoon loo dirayna ilaahay muxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa maxaa fircoon markuu tegayay la yidhi walaa taniyaa fii dikri baa ilaahay yidhi fircoonkaa xoogga badan leh ee askar iyo ciidan iyo wax kastaba haysta u taga baa ilaahay yidhi zaadkiinnu laakiin waxa weeyaan walaa taniyaa fii dikri ha ka noogin aniga xuskayga subxaana allahi wabixamdihi iyo laa ilaaha illa allah iyo wixii la mida kuwaa ha ka noogina baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayuha alaxiba ilaahay nebi yuunus baynu soo sheeganay uu kaga warramay nebiyullaahi muusa ilaahay ka warramaya markii nimcadu u cusboonaatay rabbigii markuu weydiistay intuu jeclaaday inuu arko ilaahu aan ku arka la yidhi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi arki kari maysee bal hadda buurtan eeg hadday buurtu taagnaato waa suurtagaladna inaad i aragto buurtii baa dhalaashay falammaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk markuu miiraabay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wuxuu ku bilaabay subxaanak tubtu ilayk ilaahayow adigaa ceeb ka dheer ceeb iyo xumo adigaa ka dheer waa kuu toobad keenay buu leeyahy wa ana awalu lmu'miniin baanan ahay ka koowaadee ku rumeeya inaan adduunka laguga arki karin nebiyullaahi zakariya markuu dalbaday inuu aayad helo ilaahi buu barye cajab qabta karaamaadkii maryan markuu arkay ayuu barye cajab qabta ilaahay weydiistay rabbi innii wahana alcadmu minii washtacala ra'su shayba walam akun biducaa'ika rabbi shaqiya ilaahay buu barye cajab la barye baryadu baryayaa waa maxay waxaan dunida ka suurtagal ahayn buu ilaahay u sheeganaya laakiin wuxuu leeyahay adiga agtaada waa ka suurtagal ilaahu aniga madaxu way caddaaday oo waa gaboobay oo islaantaydii waa gabowday oo wax ma dhalayso markii horena caaqir bay ahayd da'ina waa u raacda iyadoo yaroo caaqira waa laga yaabaa inaad tidhaahdo mala haddii uun meel la taabto way iska dhali doontaa laakiin xadkiiba waa dhaaftay baa rabbigu ayuu ku tilmaamayaa nebigu sidaa markuu sheegtay ilaahay wuxuu yidhi waa ku siiyey ilaahu aayadii yeel buu yidhi waxaa la yidhi aayaddu waxa weeyaan 3 maalmood baad aamusnaanaysaa laakiin rabbigaa waad u tasbiixsanaysaa waad xusaysaa aayaddu waa taas baa la yidhi qaala aayatuka anlaa tukallima annaasa 3 ayaamin ilaa ramza wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar وصبح بالعشي والإبكار إلهي سبحانه وتعالى عيسى كورمي نبي الله عيسى دبتنا وحل يدي عيسى وماذا يردتك أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله إلهي بقول لقنا يوحور لها قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد بوح والرمية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل بل قلي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحتى هذا واكن جد كيو سجانا ندت كوجي الراعيانة أنا جاي أنت الراع ضيبة وسبحان الله وما أنا من المشركين كل واقبال لي إلهي وحينا ورمياه مخلوقات كأكتي سكددو ملائكة الله إلهي يشقد ودبينيتي وإنا لنحن المصبحون بيلين وإنا لنحن المصبحون جملة اسمية لا أتكيي أدوات التوكيد ليس جوجي أي كشيغان يان ملائكته شقد ودبينيكاتي وإنا لنحن المصبحون إلهينا وفريا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون يقولون واشيكتين ربنا واشيك ربنا وحلي يسبحون الليل والنهار لا يفترون
kala go' ma leh وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلهي وحين ورمى يا جنة دتك لجيانا ينشقدوا ديني كنطي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده أي ينشقدوا دابا إلهي سبحانه وتعالى أيها الأحبة هدي قرآنك سيدا وبالبلاديي انت النصوص كتجانا سوق هذا ناي كبدا انت ان شاقي وهي قربان السلوان قري كريواي قرآنك انت قصار ارتي تسبيح هي التحميد ترمله آد بي أبدانتي إلهي سبحانه وتعالى ينفريه قور والبا وقت كستو آدنا وشيغي كراون قرآنك وحكوت الله يدول لي تسبيح صدا صبح هبين صغر دحي وبري حدق دع قور كستبا إلهي وحلي تسبيح صدا إذا تسبيح دو وحي كمتهي وردق مركو هرم مطلقا بي كمت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سيقاد أتربى أن السنة النبي عليه الصلاة والسلام بوصارت قاببك الله تصبيح سنة أحاديث تهداد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام جذر الصبح كصاررتي أما حمد كصاررتي أدبي أتربى دينينا تلمامي النوعيات كتصبيح ذا الله لي ماده دي صلاة الدمان تيدنا صبح باب الله هذا ولذلك بعلماء واحد صبحة الضحى أما وك عمر لقى شجين لو كنت مصبحا لا أتممت علماء بدبايد هذا الصبح هذا أنت بدن تصنع الله هذا لكن مفسرين بدن باب حي قبان مع التكلين الله هذا قرما وقت والبوالة تسبيح حالة كستات كشرته مركاد يابتا سبحان الله الله هذا marka dhibi ku qabsata subxaan allahi wa bixamdihi la yidhaahdaa marka nimcaad hesho ama ay kuu cusboonaato ayaa la yidhaahdaa farskaaga markaad fuulaysaa la yidhaahdaa ama daabadaada gaadhigaaga subxaana aladii sakhara lana haada wamaa kunna lahu muqriniin nimca cusub markaad hesho sidii nebi muuse la yidhaahdaa subxaanak markaad ducaysanaysaa la yidhaahdaa fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu markaad dembiga qiranaysaa la yidhaahdaa qisadii suuratu nuun ku taale asxaabu ljanna qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun idan xilli kasta hadday dhibi ku haysato hadday nimco ku haysato haddaad yaaban tahay haddaad wax kasta oo duruufaadka ka mida waa la tasbiixsadaa tasbiixdaasi midhahaad ka goosanaysaana koo wayna dembi dhaaf hesho nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim fii yowmin 100 mara gufirat dunuubuhu wain kaanat midla zabadi albaxr qofka yidhaahda maalin 100 jeer subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim dembigiisaa la dhaafaa wain kaanat midla zabadi albaxr xoorka badda oo kale hadday mawjadda badda hadday leeg tahay waa la dhaafaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam dembigaagaa lagu dhaafayaa wixii shidde iyo dhib ku haysataa lagaaga dhaafayaa laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin فلولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وحي عديد اللابتك أجرى لك دافية ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين